إلهي باب مهدلة ما نوحي إنها مامول ليدا هذا خاتم الاستيد في الصوماليا مامول كان وحي لو سميي إنه دلهينا إنه غاركا أينو كسمايسانو أو أينا مردم بيت سيدنا وهان جبني سياسة إنه غاركا أينا عندنا مرتبة نقولين dadkii tareex tagay ilaahay baa mahadle waa wax lagu farxo waa wax taariikh la galaysa sababtii aan tagay waxay ahayd maaha dad gaar oo anigu aan leeyahay waxay ahayd wanaaga midnimada iyo suukaanka dadka ka soo jeeda sool sanaag iyo cay waxa weeyaan dhulkeennii horta ilaahay wuxuu na siiyay dul aad u wanaagsan dad aad u wanaagsan ayaa meesha ugu tagnay oo u baahan in la hago doonaya dad fikrad ku soo biiriya iyagoo jahwareerhayo markii aan meesha tagnay ilaahay baa mahadle ilaahay baa gul na siiyey in ummadeennii ay doonayeen wax jidka u baneeyo waayo waxay ka daaleen labadii maamul ee hareeraha ka jiqi jiray anuu qof baa may waan runtii haddaad dad wanaagsan baa ilaahayna siiyey dhul wanaagsan baa ilaahayna siiyey laakiin inakaa garan weynay saynu danteennii ay dhulkeennu maali lahayd haddase waxaan filayaa inaynu ku jirno xilli ilaahay ina soo khaatumeeyey kulligeenba ilaahay baa mahadjaale waxaa jirta anigu waxaan ka tegay jarmalka waxaan tegay buuroodle afar cishaan joogay waan ka baxay baabuur baan ka kaxaysay taleex baan tegay dariiq badan baan sii maray dhul badan oo aynu leedahay baan sii maray dad wanaagsan baan kula kulmay laakiin ayaan daro waxa ah in laynu waddankeennii wax horumara oo maanta uu leeyahay aanay jirin waxaad dariiqa ku arkaysaan carruuro yaryar oo kaba soo qaadata jirka ilaa dhalinyarada dhowr 20 jirka oo dariiqa iska taago oo waxay maanta xabad mooyaan waxay ku hayaan oo kale inaanay jirin waxaa la isku dhaafayna adduunka waxa weeyaan waxbarashada caafimaadka dhulkaaga dadkaaga inaad kor u qaadid haddaynu nahay dadka ka soo jeeda gobolada maxaa inagu haboon inaynu samayno waxay wadadahay dhibaato badan bayna wada haysato culays bayna wada saaran waayo khaatimo waxa loo sameeyey maaha dadka yani madaxda lagu magacaabay idinkaa khaatimaa idinkaa madaxdiya idinkaa dadkii dhaqaajin lahaa maamulka laynoo sameeyey haddaba maxaa laynooga baahan yahay inaynu ku dadaalo sidaynu horumar dhalinyaradeenna aynu u gaadhsiin lahayn hadday xag xirfad noqoto hadday noqoto xag waxbarasho kama soo qof kastoo innaga inaga mid ah haddaynu maanta dhalinyarada agoomaha ah ee yani dadkii mujaahidiintii ay ka tageen ama dadka danyarta haddaynu isku talagareyno inaynu barno halkii ilmood sanadkii 300 baad iskuulkaga soo saari kartaa 300 lacag maaha idinka sheekeeyo maalin baa anoo guriga hooyaday ka fadhiya ayaa waxaa ii timi gabadh baa ii timi gabadhu waxay jirtay ilaa qiyaaska dandadeeda aan sheegay ilaa 7 jir bay ahayd uur bay ahayd xaamil ay ahayd waxay igu tiri hooyadaan ma joogta maya baan ku wiri waa qisada ilaa inaan idinka sheekeeya ayaan doonaya waayo waxay ka mid tahay waxyaabaha igu reebay waxaanan ilaawi karaynin gabadha waxay ku tiri hooyadaan ma joogta maya baan ku wiri waxay ku tiri may waraabin kartaa waan kacay biyihii baan u keenay marka waxaan ku yidhi oo xaamilaatay maasha Allah wadaraysaa ma dhalaya bay ku tiri ixtaan anigu noolaada warumahayo naxdin bay ku noqotay maxaa dhacay baan ku yidhi waxay ku tiri ilmahan caloosha aan ku sido 20 cisho ka hor buu dhintay burcaan tegay bay tiri dhakhtarkii lacag bay igu soo xidhay lacagtiina ma haysto wallahi waa runtayda waxaan ku markaan lacagteeda meesha watay hooyaday baan dhibo hooyaday ma joogo waxaan ku yidhi waxaan ku hadlaan garan waxaan ku yidhi ma isugi karto weyla wixii ka bacdi bay imanaysaa maya bay igu tiri beri ii kaale baan ku yidhi bacda salaad subaxii waxay ku tiri inaan gaari doono garan maayo maalintii subaxii baan hooyaday habeenkii bay tiri hooyaday baan u sheegay waxay ku tiri maxaan ka garanayaa dee gabadhu rabuwa ma joogta adigu
ده بس وحي ببلانك وفريستي قولي واي يعني وحويا شيكدو مركا ما هي قولها كلية وحان رواينا اللي زي كان وحيابها كدن بيو ودعوا من الأوغي ودكينا كان عياتنا وقلنا كسيح باكرا صبحي باك عيو دادو واي وان رادي محاق وهلي إلى دمتي مركا مدام هذا رجل يقوم عابي أريمها هرماركا talaabada ugu horeysay aan qaadayo waxa weeyaan oo barankayga hadda inuu yahay dhakhtarro haweenka iyo carruurta inaan wadankii ka hirgeliyo dadka aan doonayaa inay garab qabtaana waa qof kasta oo reer khaatimo ah waa dad wax laga rabaa waaye idinka 18 jirkiina ilaa ka 100 jirkiina adduunku waa laga tegayaa taariikhduna way hadhaa وأساقط والله لا بدينا ولا وايا لكن مساكين تيجي قدام بيسا إنه قرقارنو وحنا نشعل لها ونروح هديبتوي بدن بيتهالي لها يسطها وحيابو بدن بالغ قادا إله لكن عرسكينا ساري وانا لغا بحيا عنه جرنا كان شوغيتي أنت يعني قاتلوا صور دباطي جرنا كسانو صور ضيكي مكتيجي والسكوتر جري وحياه بدن تمركينا كير دليو إن شاء الله بإذن الله الكريم سد أو قصها بدن يودك يدور كحرر وحياه بدن وأكو فرحدان أيديهن المغلي دونا وحياه بدن تفهم أيديهن المغلي دونا مركا وحنا ليه ددالك أي مود ددالو دولكو وحدولكو كودران أرتا إلهي بمجعل خاطبين وبحيي أنا والله وبالله يعني وعلي موشن باي قال يرى على هذا واحد تمانتي أتريح كتجي إلى نقطة ولا تصبي كهذا نصور عمرتي شغلي بنصور نقولي وحنون بدي جدا مري تلاقي نظرتي كبحي حاجة يقطع لي سيادة وحن الآسيا عاو هذا دمتي تعودت وان الله هذا ما يفهم تيمدي وان الله وحن هذا ما هذا عاود طبعا كله فرحات باكو دمانيا وايو مدح مدحي وكو فرحان أيان مقلي أنا وحنا هاي لو تدوبي سنة سنة تملك الدقيقة هاي عربي بها تمالو قولي نرشد ستة ملك باجو بسكوتك هذا لفتيدا يديكيga يدوحايga يمسكحدaydu danta dhulkayga dadkayga ayay ku fududayeen لكن الموش بير قالوا حبيسير كيدا ياعي ولا اسمها سنتين أربعة وحسن هاي رجال مسلمين عالم Hagla hayaga darawishey